dhammaan madaxda gobolada iyo degmooyinka dalka Kenya ayaa laga codsaday inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo ka dhalan karta go'aanka maxkamadda sare Isniinta lagu dhawaaqayo taasoo ku beegan 5 bisha Sebtembar aynu ku jirno. ku-xigeenka booliska dalka Kenya Edward Mbegwa ayaa warqad u diray madaxda laamaha ammaanka isagoo ku booriyay inay feejignaadaan oo ay u diyaar garoobaan amaro la xiriira amniga iyo sida laga yeelayo go'aanka maxkamadda kadib. warqad ku suntaneed 1 bisha Sebtembar Mbegwa ayaa waxa uu sidoo kale ka codsaday saraakiisha amniga inay nuqulo kamid ah qorshe holoodkooda u soo gudbiyaan xarunta adeega booliska Kenya inta aan la gaarin ka hor 3 galabnimo ee Jimcaha ay ku beegneed shalay. iyadoo ay ku xiran tahay go'aanka maxkamadda racfaanka Kenya waxaan filaynaa falcelino kala duwan oo ay ka bixiyaan dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha kulul sida rabshadaha iyo burburka hantiyadeed. waxaa la idin farayaa inaad diyaarisaan howlgallo lagaga hortagayo dhibaatooyinka ka dhalan kara go'aanka maxkamadda ayaa lagu yiri warqadda qayb ka mid ah. arrintan ayaa timid saacado kadib digniin ka soo baxday safaaradda Mareykanka ee Nairobi oo ku wajahan muwaadiniinteeda u socdaalaya iyo kuwa ku sugan ismaamulka Kisumu ka hor inta aan la xukumin Isniinta, isagoo ka falcelinaya isla talo bixin la mid ah barasaabka Kisumu ayaa waxa uu xaqiijiyay dadka deegaanka inaysan filayn in wax isbedel ah uu ku yimaado xaaladda amniga. si kasta oo ay ahaataba natiijada ka soo baxda xukunka ee ku tilmaamay gobolka inay tahay bulsho nabad ah oo jinsiyado badan iyo isir ah. waxaan ka qabnaa walaac qoraalkan sida gaarka u tilmaamaya Kisumu kaasoo lagu xusay inay magaaladu ay ka dhici karaan rabshado kadib 5 bisha Sebtembar oo la gaarayo go'aanka maxkamadda kaasoo ku saabsan dacwadda doorashada madaxweynaha Nyangu ayaa sidaasi ku sheegay hadal uu soo saaray.